بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال إدلهانتين بميل والباجوكتان waxaad ku soo dhawaataan muuqaal gaar oo aan kaga hadlayno arrimaha jacaylka iyo weliba sidoo kale qaabka haweenka Soomaaliyeed ay u soo jiidan karaan ninkooda. haween badan oo Soomaaliyeed oo ku nool daafaha dunida ayaa ku jahawareersan sidii ay isku jeclaysiin lahaayeen ragooda, waxaana arrintaasi sabab looga dhigayaa iyagoo aan dhab u aqoon wadooyinka ay u mari karaan sidii ay u soo jeedan lahaayeen qulubta ragooda. haweenka diintu ay ku yartahay ayaa inta badan miciin bida wadooyinka khaldan sida sixirka iyo waxyaabaha la midka ah. haddaba gabadh yahay ogow, ninkaagu libaaxa kama adka ee ka dhigo rabaayad aan waxba kaa diidi karin, kuna hano qalbigiisa si sahlan. waxaana tusaale kugu filan qisadani. haweenay ayaa u tagtay nin wadaad ah iyadoo u qaadatay inuu yahay nin sixirlow ah, waxaana ay ka codsatay in uu sameeyo sixir si uu jecelaysiiyo ninkeeda isla markaasna uusan u jeclaan dumarka kale. wadaadkii ayaa u sheegay haweenayda in ay arrinta ay doonayso aysan ahayn mid sahlan, waxaana uu sheegay in laga maarmaan ay tahay in ay qarashaadkeeda ay bixiso arrintani. waxaanay ku tidhi cod miskiinnimo ah, haa, waan la baxayaa qarashkayga. wadaadkii ayaa u sheegay in arrintan aan la samayn karin iyadoo aan la helin tinta qoorta libaaxa amaba shaashka, taas oo amakaa ku reebtay haweenaydii, balse waxay tidhi waan ogolahay, haa wadaad, laakiin xal kale ma lahan miyaa arrintani, waayo libaaxa layskuma aamini karo. wadaadkii ayaa ku jawaabay maya, waxaana uu sheegay arrinta ay doonayso ee ah ninkeeda in la jeclaysiiyo inay ku xidhan tahay tinta qoorta libaaxa, haddii aysan keeninna aysan suurtagelaynin dalabkeedii. haweenaydii oo dhabanada haysa ayaa ka soo baxday hoygii ninkii wadaadka ahaa uu deganaa, waxaana ay durbaba la tashi la bilowday haweenay kale oo ay ku kalsoonayd, taasoo u sheegtay tala ah in libaaxu uu ugaadhsan haddii uusan baahnayn, haddii uu dhargana shartiisa laga nabadgelayo, oo sidaasi uu waxyeelo ugu geysanaynin dadka iyo dunyadaba. haweenaydii oo ku qanacday markan taladii loo soo jeediyey ayaa durbaba waxay bilowday inay duurka aado, isla markaasna waxay hilib u tuurtay libaax maalin walba ilaa uu ka bartay oo ay la macaamishay, waxaana markii dambe ay ka heshay kalsooni, taas oo u horseeday inay ku guulaysato inay madaxa u salaaxdo kana jarto tin ka mid ah timihiisa. intaasi kadib ayay u tagtay wadaadkii tinta u diray, waxaana uu weydiiyey sida ay ku soo heshay tinta libaaxa, iyadoona uga sheekaysay waddadii rafaadka badnayd ee ay soo martay qaabkii ay ku hanatay tintaasi. waxaana wadaadkii oo yaaban ugu jawaabay, gabadh yahay, ninkaagu libaaxa kama shar badnee, la macmiil oo dharji. haddaba daawade, waxaan filayaa in xigmadda sheekadani aad fahantay. haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub, fadlan sabscribe dheh oo nagu soo biir, sheer garee oo gaadhsii asxaabtaada kale muuqaalkani. intaynu dib ugu kulmayno muuqaalka dambe, nabadgelyo.